shan waxyaabood oo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu yaraantiisii soo sameeyay oo dunida ka yaabisay. waa markii ugu horeysay oo faahfaahin laga helayo nolosha dhabta ah ee madaxweynaha adduunka ugu yaabka badan. waa madaxweynaha kaliya ee dunida aan si fiigiisa ama taariikhdiisa midna waxba laga ogeyn. waa hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. buug cusub oo loogu magac daray dhaxal sugaha weyn oo laga qoray taariikhdiisa ayaa markii ugu horeysay la soo bandhigay. buuggan ayaa wargeyska Washington Post waxa uu ku tilmaamay mid muujinaya dabeecadaha qalabsan iyo dhaqamada la yaab kale ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi maadaama uu iftiiminayo noloshiisii yaraantiisii waxa uu ahaa sarkaal. buugga ayaa soo bandhigay madaxweyne Kim Jong-un markii uu jiray 6 sano inuu ahaa sarkaal ku labista dharka ciidanka militariga dalkiisa oo waliba ay garbaha ugu xardhanayeen xidigaha sarkaalnimada, isla markaana uu siin jiray salaan sharaf aabihii oo ahaa hogaamiyaha dalkaas, isla markaana uu digtoono gali jiray inta uu aabihiis dhaafayo. goorma ayuu darawalnimada bartay? arrimaha xiisaha leh ee buuggu tilmaamay ayaa ah in Kim Jong-un markii uu gaaray 7 sano jir la siiyey gaari si gaara isaga loogu farsameeyey si uu u wato. kolkii uu gaaray 11 sano jirna waxa uu dhinaca ku sidan jiray baaskoolad nooceedu yahay Colt .45. saaxiibo ma lahayn. sida buugga lagu sheegay madaxweyne Kim Jong waxbarashadiisa asaasiga ahayd oo idil waxa uu ku qaatay gurigiisa oo iskoolba ma tegin. sidaas darteedna weligiis ma yeelan saaxiib gaar ah oo aan ka ahayn walaalkiis ka weyn ee Shool oo ay isla soo barbaareen, kaasoo isaguna ka amar qaadan jiray Kim Jong-un tan iyo yaraantiisii walow da ahaan uu ka weynaa. ciyaal kubadda la ciyaara ayaa guriga loogu keeni jiray. buuggan ayaa daboolka ka qaaday dabeecadaha kalitalisnimada ee ku soo jirtay madaxweyne Kim Jong-un tan iyo yaraantiisii, kuwaasoo ay ka mid ahayd inuu yaraantiisii ku amri jiray dhalinyaro gurigiisa loogu keeni jiray inay la ciyaaraan kubadda kolayga oo uu isagu aad u jeclaa. Kim ayaa ku raaxaysan jiray canaanta iyo bahdilka mid kasta oo ka mid ah carruurtaas haddiisan ula ciyaarin kubadda sida uu isagu rabay, arrin uu weligiis ka xanaaqsanaa yaraantiisii. inkastoo nolol aad u sarraysa uu ku noolaa yaraantiisii, madaxweynaha haatan talada haya dalka Kuuriyada Waqooyi oo sida buugga lagu sheegay uu qasri wax walba u dhammaystirnaayeen uu ku noolaa, haddana tan iyo markii uu 8 sano jirka ahaa waxa uu ku dhafi jiray tijaabooyin uu ku samayn jiray qalab iyo aalado aan macno badan lahayn, kuwaasoo uu gacantiisa ku sameeyey. waliba uu la kaashaday injineero iyo khubaro waaweyn oo isaga la taliyaal u ahaa. ninkan ayaa la sheegay inuu yaraantiisii ka xanaaqsanaa sababta aanu u samayn karin diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka, isagoo markasta isweydiin jiray sababta aysan u degin maraakiibta ay ku raran yihiin xamuulka dagaal ee aadka u culus, ama aysan u soo dhicin diyaaradaha ay ku raran yihiin gantaallada dagaalka ee waaweyn. warbixintan waxaa tarjumay Maxamuud Al-Bashiiri waxaana soo jeedinayay anigoo Cabdirasaaq Juba.